moogtahay in gabadha fanaanada kuu muuqata ay ka heestay arooska jinka kadib markii laga casuumay iyada. nuura altaqa waxay ahayd fanaanad iyo durbaanley caanka ah Kuwait sanadihii 1990meeyadii waxayna caan ku ahayd keesida aroosyada iyo xafladaha waaweyn waxaana la sheegaa inay la kulantay dhacdo argagax leh oo bedeshay nolosheeda. maalimaha ka mid ah nuura iyo kooxdeedii muusiga ayaa lagu casuumay aroos weyn oo lagu qabanayay guri qurux badan. markii halkaas tageenna waxay la kulmeen dad badan oo si diiran u soo dhaweeyay, wax walbaana waxay u ekaayeen sidii xaflad caadiya, cunto wanaagsan, muusig farxad badan iyo dad qurqurux badan. laakiin intii dambe habeenkii markuu sii dheeraadaba waxyaabo la yaab leh ayaa bilaabmay inay dhacaan. qaar ka mid ah xubnaha kooxda muusiguna waxay dareemeen waxaan caadi ahayn. waxaa la sheegaa in dadkii arooska joogay ay lahaayeen jidh kulul oo ka duwan keena caadiga, wejiyadooduna way sii bedelmayeen marba mar ka sii dambaysa. waxa ugu la yaabka badnaana wuxuu ahayd inay arkeen dadka qaarkoodoo lugahoodii noqdeen sida kuwa xoolaho kale, sida lugaha idaha iyo fardaha. markay si fiican u fahmeen waxa dhacaya waxay ogaadeen inay caawa dhan u heesayeen jin. qof kasta oo ka mid a kooxduna wuxuu dareemay cabsi aad u weyn. waxay isku dayeen inay baxsadaan, laakiin si lama filaana iftiinkii ayaa damay. fursadaas ayna ka faa'iidaysteen iyagoo gurigii ka soo baxsada oo ka soo cararay. markii ay bannaanka u soo baxeenna nin maraya agagaarka guriga ayaa u sheegay in dhismahan uu sanado badan cidna aysan deganayn. taasna waxay xaqiijisay in xafladan aysan ahayn bani aadam balse ay ahayd aroos jin. kadib dhacdada argagaxa leh nuura altaqa waxay joojisay shaqadeedii fanka waxayna gebi ahaanba ka fadhiisatay heesaha iyo muusiga. sheekadeeduna waxay noqotay mid caanka ah khaliijka iyo dunida carabta, waxayna dadka qaar u arkaan cashar ku saabsan halista waxyaabaha qarsoon iyo in aan la ogaan karin cidda dhabteed la macaamilayso. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo sheekooyinkan oo kale hore ma u maqashay? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebookka profileka saaranna aad subscribe dhahdo.